waxaan ka hadli doonaa maanta 5 qodob oo sababaya in aad joojiso ka fikirka inaad noloshaada wax ka bedesho ama aad keento fikirro isbedel mugle ku sameynaya noloshaada. qodobka koowaad waxa uu noqonayaa in aanad si fiican naftaada uga warqabin oo aanad naftaada waqti siinin oo aanad si fiican u daraasaynin oo dhab ah xaaladda aad ku sugan tahay nolol ahaan, xaaladda aad ku sugan tahay caadifad ahaan, iyo xaaladda aad ku sugan tahay horumar ahaan, iyo sidoo kale caqabadaha shakhsiyan ku haysta ee dhabta ah. waayo inta badan baa la dhaca caqabadaha in haystaa waa qaar mala awaala oo inagu boonboonino maskaxdana ku sawirano inoona ah qaar aynu ku dareenno inaynu helo waxa la dhahaa excuse ama in aynu cudurdaar helo si aynu halkeena ugu sii sugnaano oo aynaan u qaadin mas'uuliyadda nolosheena. marka waxa weeyaan qodobkani waa mid ka mid ah waxyaalaha joojinaya inaad keento ama ka hortaagay inaad keento ha fikir noloshaada horumariya. waqti naftaada lama qaadatid, waqtiga ugu badan asxaabtaada la qaadataa ama waxaad ku qaadataa shaqo ama waxaad ku qaadataa waxbarasho kaliya taa. balse laakiin waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan ee u baahan tahay waxa weeyaan inaad naftaada la qaadato si aad horumar u gaadho una keento fikirro anfaaci leh oo naftaada wax taraya iyo noloshaada. waxaad u fiirsataa waqtiga aad siiso naftaada waqti ee aad kaliya qaadato adigoo si yar qurux badan u xisaabtamaya, adiga oo eegaya ama dhinacyo kala duwan ka istaagaya caqabadaha ku haysta si aad xal ugu hesho. waxa aad dareentaa deganaan qalbiyeed iyo sidoo kale in aad aragto waliba fursado ku bannaan oo ay tahay inaad tallaabo qaado si aad fursadaha laftigooda u xaqiijiso. qodobka labaad waxa uu noqonayaa malihid hadaf cad. waxa ka hortaagan inaad keento fikir noloshaada horumariya waxa weeyaan waa hadaf la'aan. yacni ama hadafkaagu maaha mid toos kugu cad oo ma garanaysid waxa aad doonaysid iyo waxa aad diidaysid iyo waxa aad doonaysid laftigiisa qeexitaankiisa. waxa laga yaabaa haddii la weydiiyo maxay waxaad doonaysaa inaad siyaabo kala duwan aad u qeexdo oo aan iswaafaqsanayn. balse laakiin haddii waxa aad doonaysaa uu si dhab ah kugu qeexan yahay oo isla waqtiga lagu weydiiyo ama aad ka fikirto aad u qeexi karto si waadixa oo aan shaki ku jirin ama muhmal ku jirin, waxa hubaala inaad dabayn karayso hadafka laftigiisa. marka waxa fikirka ka hortaagan waxa weeyaan hadafkaaga aan hadaf cad hayn. waxaad u baahan tahay inaad hadafkaaga ka dhigto mid cad oo aad u fadhiisato si waadixana u falanqayso si uu kugu fududaado gaaritaankiisu. waayo waxaanad garanayn qeexitaankiisu macquul maaha in aad xaqiijisaa. qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa waxa aad aqbashay in aad joojiso isku dayga. inta suxulkaagu dhulka ka sarreeyo marnaba ha joojin si kastoo ay caqabada kugu adkaatay in aad samayso horumar samayso oo aad isku daydo wax cusub ama aad isugu daydo wixii aad qabatay si ka duwan sidii hore oo qaab yacnihii ka duwan uu noqdo qaabkii hore. marka xooyan waxaad u joojisay in aad horumar gaadho fikirka kugu dhalanaya waxa weeyaan waa fikir ah ama waxa aad u fikirtaa qaab ah inaad isdhiibtay oo yacnihii aad quusatay. taasina waxay keensanaysaa in aanad wax horumar gaadhin, fikrada kugu soo dhacana ay noqdaan fikirro khaldan. qodobka afraad waxa uu noqonayaa waxa kugu hareeraysan dadyow ha fikirkoodu aanu hayn mid positive ama togan ama wanaagsan. waxaad ku hareeraysan tahay dadyow aad ka dhaxasho fikirro khaldan oo tabnaantooda u badan ama fikirro tabnaantoodu ay aad u sarreyso oo yacnihii waxaad la saaxiibtay dadyow aan aaminsanayn inay noloshooda bedeli karayaan. waxaad la saaxiibtay dadyow eedeeya deegaanka ku xeeran iyo dadka ku xeeranba. waxaa kaloo aad la saaxiib tahay dad aan aaminsanayn awoodaha ilaahi subxaana wa tacaala siiyey iyo fursadaha uu siiyey, taasoo keensanaysa inaad ka dhaxasho negative attitudes ama hafikirro aan wanaagsanayn oo taban. qodobka shanaad waxa uu noqonayaa u dambeeya waxa aad ku qarqoonsantay caqabadahaagii nololeed. caqabadahaaga nololeed waa kuu yimid si ay wax kuu baraan, waa kuwa ka dhashay afcaasha aad samaysay si aad u ogaato khaladka aad ku sugan tahay. dadyoga qaarkood waa qaar guusa oo ay ka awood badato ama ay ka tanbataan caqabadahooga nololeed halkii ay xal ugu raadin lahaayeenna keliyata ka fikra caqabada iyo xanuunka ay ku hayso balse aan ka fikirin caqabada qaabkay uga bixi lahaayeen xalna u keeni lahaayeen.
marka fikirka laga hadlayo waa laba noocun waa mid destructive iyo mid constructive macnaheedu tahay mid fikirku burburinaya ama fikirku dhisaya inta ugu badan fikradeena fikirnaana waa qaar ina burburiya oo inagu beera tabnaan ama waxa la yiraahdo negativity-ga shantan qodob waa shan qodob oo ka hortaagan inaad keento fikiro noloshaada horumariya haddii aad xaaladaha noocan oo kale ku sugantayna waxaad u baahan tahay inaad degdeg isu gaadho oo aad wax ka qabato si aanay ku u noqonin qaar waqti badan ka lumiya oo noloshaada hor istaaga iyo horumarkaaga shakhsiyeed noloshu aad bay u gaaban tahay mana istaahisho in fikiro khaldan maskaxda la geliyo laguna sugnaado meel keliyata oo aan dhaqaaq lahayn waxaad u baahan tahay inaad isbedesho sanad cusub ay nagu soo wajahan haddii la yiraahdo oo ay tahay inaad isbedel samayso haddii aanad isbedel samaynina sanadku kaliya wuxuu noqonayaa tiri isbedelaysa balse laakiin adigu ma noqonaysid cid isbedelaysa la ima ficil si sanadkaaguna isku bedelo noloshaaduna isku bedesho assalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakaatuh